weli khadka way isticmaalayaan oo waa online baraha bulshada ku xidhiidhaana waa xidhan yahay ugu yaraan 14 shabakadood ayaana khadka laga saaray kadib heshiis ay isku afkarteen komishanka doorashooyinka Soomaaliland iyo shirkadaha bixiya adeegga internetka si looga hortago in lagu faafiyo wararka been abuurka ah inkastoo konton dawladood in ka badan ay Soomaaliland u soo direen warqad ay ku codsanayaan inaan la xidhin baraha bulshada hay'adaha xuquuqda aadamaha u doodana waa ay ku gacan saareen inay Soomaaliland xidho baraha bulshada maalintii shalay ayay ahayd markii la joojiyay barta bulshada ku xidhiidha Facebook iyo shabakado kale oo ka mid yahay qiyaastii 14 shabakadood ayaanay gaadhayaan waxaana ka mid ah shabakadahaasi qaar ka mid ah kuwa ay dadku isku wadaagsadaan afkaarahooda si qaar ka mid ah dadka iyagu sida waalan u isticmaalay isla markaana uu camalkooda noqday barta ku xidhiidha bulshada ayaa keenay xal taasi laga hortagayo taasoo aanu xanibahayn barta la xidhay ee Facebook balse Soomaaliland uma joojin baaqyadaasi kala duwan xalay fiidka hore ayaa gabi ahaanba Soomaaliland laga baqtiyay internetka dhalinyarada camalkooda noqday baraha bulshada isla markaana sida weyn ugu taxan khadka ayaa xal raadisay lagu isticmaali karo dagalka bulshada ee la xayiray waxaana ay soo saareen in ka badan 5 adeeg oo lagaga maarmi karo xayiraadda baraha bulshada waxaana ka mid ah shabakad aad kaga guurayso internetka dalkaaga isla markaana aad u gudbayso shabakada caalami ah waxaana loo soo gaabiyaa VPN sababta weyn ee keenaysa in dhalinyaradu ku xidhnaadaan barta ay ku kulmaan bulshadu ayaa noqonaysa inay hor ogaadaan xogta ka soo korodha natiijada doorashada si ay u noqdaan ka ugu horeeya mid kastaaba soo gudbiyo xogtaasi balse dadka miyiga ku dhaqanaya iyaguna u dhagtaagaya natiijada doorashadaasi kulanti wanaagsan oo wacan dhageystayaal meel kasta oo joogtaan wararkii ugu dambeeyay ee doorashadii shalay ka dhacday Soomaaliland balse internetkaasi la xidhay saameyn kuma yeelan noloshooda xalalkaasi ay keenayaan dhalinyaradu ayaa noqonaysa inay sii fidaan wararka been abuurka ah ee laga faafinayo natiijada doorashada madaxtooyada Soomaaliland waxaana uu qof walba soo qorayaa murashaxa uu taageersan yahay natiijada uu haysto isagoona been ka sheegaya natiijadaasi sidoo kale waxaa jiray warqado u eekaaday kuwii natiijada komishanka doorashooyinka u isticmaalayeen balse komishanka doorashooyinka oo aanu la xidhiidhna waa ay beeniyeen warqadaasi waxaase shacabka Soomaaliland isweydiinaya ma shirkadaha adeegga internetka bixiya ayaa aqoontoodii noqon weyday inay xayiraan dhammaanba dagalka bulshada ay ku xidhiidho maadaama oo ay fadhiyaan khadka dadka ku dhaqan Soomaaliland gabi ahaantoodba isla markaana ay faafinayaan fikrado kala duwan oo ah ujeedooyinkii loo xidhay internetka مبارك فؤاد دقعدة TV قصاب هرقيسة